بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما أربعة أو قميص أي سوق جليسو طبعا كبشة سبتمبر سنة كلا بكون لبعتن يشن أو كوبعجن سديد طبعا كبشة الربيع الأول سنة كون أفر بقول فرتنية تضبع تاريخ الهجرية ده كسر هذا مركله يبرامجكي قبانها قضبة برامج كان أن إذا هيننا وحا كمده نتياه عاوز سعد وجهن شبي قدر حل ولي أي سعته عمبارينتا يسامينتا كدلتي weerarkii uu amray ee lagu qaaday magaalada Dooha dhinaca kale waxa soo baxday xog kale oo ku aadan sababtii ay u badbaadeen madaxda Xamaas haddaba maxay tahay arinta mucjisada ah ee daqiiqada gudahood mas'uuliyiintaasi ka badbaadisay in ay wada geeriyoodaan waxaan idin haynaa xog xasaasiya oo soo baxday saacada ka hor faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qasaaraha ka dhashay weerarkii fiidnimadii caawa Israa'iil ay ku qaaday magaalada Sanaa ku dhawaad 200 oo qof ayaa dhimasho dhaawac u soo gaaray xuutiga ayaa shaaciyay in dhibaatadu intaasi ka badan lahayd laakiin nidaamkooda difaaca iyo ciidamada cirku ay hawada ka saareen diyaaradaha dagaalka Israa'iil oo ay ceyrsadeen xarakada reer Yemen ayaa ku dhaaratay inay si degdeg ah uga jawaabi doonaan weerarkan Israa'iil ay qaaday Netanyahu iyo madaxda Israa'iil oo ayaguna ka hadlay duqeyntan mid ka mid ah wadamada reer galbeedka oo daboolka ka qaaday inuu ka fiirsanayo xiriirka uu la leeyahay Israa'iil maxay tahay sababtu xog baan idinkaga haynaa qodobkaasina wararkii ugu dambeeyay ee Gaza ayaan sidoo kale barnaamijka ku eegaynaa kulankii lagu waday caawa inuu yeesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo war cusub oo ka soo kordhay Iran oo war ka soo saartay heshiiskii ay la gaartay hay'adda IAEA sheekada ugu dambeysay barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay lamaana u dhashay wadanka Shiinaha oo maxkamad u tagay si ay isku furaan waliba sababtu ay tahay arrin la yaab leh haddaba maxay tahay sheekadan hadal haynta ka dhalisay gudaha wadanka Shiinaha iyo waliba baraha bulshadana qabsatay dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa dalka Yemen halkaasi oo faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxayso weerar fiidnimadii caawa Israa'iil ay ku qaaday magaalada Sanaa ee caasimadda dalkaasi Yemen haddaba wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan waxaa lagu soo warramayaa in faahfaahintan ay la xiriirto qasaaraha ka dhashay weerarkaasi wasaaradda caafimaadka ee hoos tagta dhaqaaqa Ansaarullah ama Xuutiyiinta ee Yemen ayaa daboolka ka qaaday in 35 qof ay ku dhinteen weerarka halka 131 kalena ay ku dhaawacmeen duqeyntan oo ka dhacday magaalooyinka Sanaa iyo Al-Jauf warbaahinta Xuutiyiinta la xiriirta ayaa sheegtay dhimashada iyo dhaawacu inuu ka dhacay intiisa badana xarunta haruurinta ruuxiga ah oo qayb ka ah warbaahinta Xuutiyiinta ee bartamaha caasimadda halkaasi oo wariyaal badan lagu dilay laguna dhaawacay kadib duqeynta Israa'iil waxaana ka mid ah xarumaha lagu weeraray xarunta wargeyska 26 Sebtembar iyo wargeyska Yemeni dhismaha xogta dadweynaha ee magaalada Hazam ee gobolka Al-Jauf ayaa sidoo kale lagu weeraray duqeynta Israa'iil sida ay sheegeen ilo wareedka warbaahinta Israa'iil waxay ku andacootay in 30 gantaal lagu riday Yemen iyadoo ay fuliyeen weerarkan 10 dayuuradaha dagaalka kuwaasi oo duqeeyay ilaa iyo 15 goobood madaxa golaha siyaasadda ee dhaqaaqa Ansaarullah Mahdi al-Mashad oo ka hadlay weerarkan ayaa waxa uu yiri gardarrada Sahyuuniyiinta ee ka dhanka dalkeena waa ay fashilantay jawaabna waa lama huraan geesta kale afayeenka ciidamada Xuutiyiinta General Yahya Sariic ayaa isaguna ku adkaystay in wasiir hadalku yiri weerarkan bahalnimada uusan noqon doonin ciqaab la'aan waxaana intaasi uu ku daray in ay ciidankoodu ku guuleysteen inay ceyrsadaan ama ay raacdeeyaan diyaaradihii Israa'iil afayeenka ciidamada Ansaarullah waxa uu beeniyay sheegashada Israa'iil ee ah inay duqeeyaan qalab gantaalada laga rido oo ay leeyihiin xarakada reer Yemen isagoo ku tilmaamay warkaasi inuu yahay mid sal iyo raad toona aan lahayn wuxuu sheegay in difaacyada cirku ay ka hortageen diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ee weerarka ku qaaday Yemen
isagoo ku nuuxnuuxsaday in ciidamadoodu ay ka hortageen inta badan weerarka Israa'iil. dhinaca kale Nasir al-Din Amir oo ka mid ah mas'uuliyiinta warbaahinta ahna ku-xigeenka madaxa hay'adda warbaahinta Ansarullah ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil ay ka dhaceen oo keliya Sana'a iyo Al-Jawf. wuxuu caddeeyey in qaraxyada kale ee laga maqlay gobollada kale ee waddanku ay ahaayeen difaacyada cirka oo la dagaalamayay diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil. mas'uulkan ayaa waxa uu adkeeyey in duqeynta Israa'iil aysan saameyn ku yeelan doonin howlgallada ay ku taageerayaan Gaza. Hazim al-Azad oo isna ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Ansarullah ayaa waxa uu yiri Sahyuuniyiintu waxay bartilmaameysteen dhismayaal rayid iyo guryo ku yaala Sana'a. Al-Asad waxa uu ku tilmaamay weerarka Israa'iil isku day quus ah oo uu sameeyey sida uu yiri dambiile dhaqaale ahaan jabay si uu abuuro guul been abuur ah oo warbaahineed. wuxuu carabka ku adkeeyey in mowqifka Xuutiyiinta uu yahay mid joogto ah oo mabda' ah oo taageeraya Gaza, isla markaasna aysan ka labalabayn doonin in ay qasaare gaarsiiyaan Israa'iil. shirkadda shidaalka ee dalka Yemen ee Oil Sea ayaa sheegtay in weerarka Israa'iil lagu beegsaday qaybta caafimaadka ee ku taal jidka 60 ee Sana'a. duqeyntu waxay sidoo kale lagu beegsaday laanta bangiga dhexe ee magaalada Al-Hazm ee gobolka Al-Jawf, sida ay warbaahinta Xuutiyiintu sheegtay. warbaahinta Reuters ayaa waxay ka soo xigatay ilo wareed sheegaya in weerarka Israa'iil sidoo kale lagu beegsaday xarunta wasaaradda gaashaandhigga. dadka degan Sana'a ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in weerarka sidoo kale lagu beegsaday goob u dhaxaysa laba buurood oo ah xarunta taliska iyo maamulka. heerka khasaaraha weli ma cadda. dhanka Israa'iil, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa jeediyey hadal ku aadan weerarkii caawa ka dhacay dalka Yemen, waxaana uu ku andacooday inay ku dhifteen Xuutiyiinta duqeymo iyagoo beegsaday xarumo iyo saldhigyo waxa ugu yeeray argagixiso ay ku jirtay. Netanyahu waxa uu ku dhaartay inuu sii wadi doono garaacista iyo duqeymaha Israa'iil ka cid walba ku soo duusha. wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Israel Katz ayaa isna ku andacooday in ciidamadoodu ay duqeeyeen xeryo ku yaala Sana'a iyo meelo kale oo Yemen ku yaal oo ay ku jiraan waaxdii warbaahinta ee Xuutiyiinta. waxaan ballan qaadnay inaan fulin doono weerar dheeraad ah. maantase waxaan siinay kooxda Xuutiyiinta dharbaaxa adag ayuu ku andacooday wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil. waxa uu sharaxay in waxa ugu yeeray gacanta dheer ee Israa'iil ay gaari doonto. waa sidalka uu yiri meel walbo ay ku sugan yihiin argagixisada Israa'iil u hanjabaysa. bayaankan ayaa waxaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo militariga Israa'iil iyaguna dhankooda ay war ka soo saareen duqeyntan oo lagu beegsaday goobo ku yaala gudaha dalka Yemen kadib markii sida hadalka loo dhigay la tartiray hogaamiyaashoodii. bayaanka militariga Israa'iil ayaa waxa intaasi ku daray in duqeyntu ay daba socoto weerarada Xuutiyiinta ee ka dhanka Israa'iil, waxaana la sheegay in la sii xoojin doono duqeymaha. weerarkan cusub ee Israa'iil ayaa kii ugu horreeyay tan iyo 28 bishii Agost, markaasi oo Israa'iil duqeyn ay ku dishay ra'iisul wasaarihii dowladda Xuutiyiinta iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada. maalmihii la soo dhaafay Xuutigu waxay qaadeen weeraro diyaaradaha droonka loo adeegsaday iyo gantaallo oo lagu beegsaday gudaha Israa'iil. gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee laga soo riday Yemen ayaa waxa ay daba socdeen dilkii ra'iisul wasaaraha Xuutiyiinta Ahmed Khaliba al-Rahawi iyo 11 mas'uul oo sare oo lagu dilay duqeyn dhacday 28 bishii ayna ka soo gudubnay. al-Rahawi waa mas'uulkii siyaasadeed ee ugu sarreeyay ee lagu dilo isku horimaadyada u dhaxeeya Xuutiga iyo Israa'iil. wahagaag intii la socotay wararkayagii maanta waxaan idin soo gudbinay dowladda waddanka Masar oo sheegtay inay dhexdhexaadin ka dhex samaysay dowladda Iiraan iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan barnaamijka nuclearka ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA. haddaba markaas hay'addu waxay sheegtay in arrimahani ay wax weyn ka tari doonaan arrimaha kormeerka xarumaha nuclearka ee Iiraan, laakiin Iiraan ayaa caawar soo saartay. haddaba aynu egno warkaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Abbas Araghchi ayaa sheegay in heshiiska ay la galeen hay'adda IAEA aanu hadda ogolaanayn kormeerayaashu inay galaan goobaha nuclearka ee Iiraan. agaasimaha guud ee hay'addaasi
Rafael Grossi ayaa ku dhawaaqay in qaab dhismeedka cusub ay ku jirto dhammaan xarumaha Iran in la kormeero isla markaasna ay lagama maarmaan tahay in laga soo gudbiyo warbixino ku saabsan goobihii la weeraray intii uu socday dagaalkii Israa'iil iyo Iran oo markii dambe Mareykanku Iran Israa'iil u soo hiiliyay. Grossi waxa uu sharaxay in dukumeentiyada farsamada ay cadeynayaan habka kormeerada ogeysiisyada iyo fulintooda si waafaqsan heshiiska ilaalinta dhammaystiran isagoo xusay qorshayaasha in lagu dhaqangelinayo habraacyo gaar ah oo ay ku jiraan xarumaha nukleerka ee Iran gaar ahaan Isfahan, Natanz iyo Fordow oo carabka ku adkeeyay in qodobada heshiisyada iyo waajibaadka Iran iyo IAEA aysan isbedeli doonin. Tehran kama aysan ogolaan kormeerayaasha IAEA inay galaan goobaha Israa'iil iyo Mareykanka ay duqeeyeen bishii Juun kadib weeraradaasi. Baarlamaanka Iran ayaa meel mariyay qaanuun hakad gelinaya iskaashiga hay'adaasi lala leeyahay taasi oo ku dhawaaqay golaha amniga qaranka ee Iran. Iran iyo hay'adda IAEA ayaa ku dhawaaqay inay gaareen heshiis dib loogu bilaabayo kormeerada goobaha nukleerka inkastoo faahfaahin aan la bixin gaar ahaan heshiiskan lagu gaaray magaalada Qaahira waxaana lagu tilmaamay inuu gogol xaar u noqonayo dib u bilaabista kormeerada la hakiyay. Wadahadalladan waxay dhaceen iyadoo Faransiiska, Britain iyo Jarmalku ay ku hanjabeen inay dib u soo rigi doonaan cunaqabatayntii ka dhanka ahayd Iran ee ay qaadeen 2015 haddii kormeerka aan dib loo bilaabin. Waxaana lagu shaki laga qabaa in Iran ay bacriminayso nuclear. Goobaha bacriminta ee Iran ayaa si daran Mareykanku ay ku andacoodeen in loo waxyeeleeyay iyadoo Iranna la sheegayo uraniumkii ay markaasi bacrimisay oo cadadkiisu ahaa 60% inaan la ogeyn halka uu ku sugan yahay. Hay'adda IAEA ayaa horey waxay u sheegtay inay u baahan tahay inay ogaato halka uu ku dambeeyay uraniumkaasi la bacrimiyay. وهاجاج معلومات كاسي وركاس هالكاس أين كجا جذوبنا وحنو جد بينا وركي جد بيا قزة سيدو كله معلومات كسو قرني وعرك إسرائيل أي كوقا دي دل كاسي قدر نتياه وعاو قدر وهنجبين ما حيته هنجبات ده سيدو كله وحنا دي هاي أرهن معجزة اللي قلت المعمي أو أي كبد بعدين هجامياش حماس مركي شري إسرائيل وعرك أي كوقا دي وركاسي قضبك له أنت أنا أوجد بين أين كوها كنو قدر حيسينا soo dhawaada markala daawadayaal hagaag caawa dagaalka qasay wuxuu galay habeenkii 706 inkastoo Netanyahu marba meel isku qaadayo haddana wali xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiintu qori caaradiis ay kala soo horjeedaan sida uu tabiyay telefishinka Al-Aqsa goordhaweyto militariga Israa'iil ayaa duqeeyay Daara Balax halkaasi oo la sheegayo in 2 qof la dilay 9 kana lagu dhaawacay tan iyo maanta duqeynta Israa'iil ay wado 53 qof ayaa lagu dilay 38 kamid ah magaalada Gaza ayaa lagu dilay oo imika ah yoolka weerarka Israa'iil. Arrimahan ka taagan bartamaha Mareykanka Gaza waxa kale oo kamid ah in hay'aduhu ay ka baxaan haddaba caawa hay'adihii gargaarka ee kuwa caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo qaramada midoobay ayaa war soo saaray waxaana ay sheegeen inaysan meelna uga socon ilaa iyo inta dadku ay ku dhaqan yihiin magaalada Gaza ee bartamaha. haddaba aynu eegno war arrintan la xiriira qaramada midoobay ayaa waxa ay ballan qaaday in ay ku sii nagaan doonaan shaqaalaheedu magaalada Gaza ee bartamaha Mareykanka Gaza inta suurtagalka ah ayna ka shaqayn doonaan in markaa dadka loo gargaaro waxaana ay tilmaameen in gargaarka iyo adeegyada badbaadada nolosha ay sii wadi doonaan kooxaha gargaarka bini'aadantinimada ee qaramada midoobay iyo kuwa kale ee caalamiga ah ama kuwa maxalliga oo ilaa iyo 200 gaaraya ayaa war rasmi ah oo wadajir ay u soo saareen waxay ku sheegeen in duulaankan cusub ee Israa'iil uu yimid 2 toddobaad kadib markii lagu dhawaaqay abaar daran iyo gaajo inay ka jirto Mareykanka Gaza macluulna ay dilaacday iyadoo xanibaadaha Israa'iil ay soo socdaan ayaa waxa ay hay'adahani ku adkaysteen in ay markaasi wadi doonaan hawlahooda gargaarka waxa ay sheegeen in goobaha Israa'iil ay ugu yeertay aag bini'aadantinimo in imika aysan muuqan goobahaasi dadku inay ka heli karaan adeegyadii aasaasiga ah iyadoo Israa'iil ay ku qasbayso dadkaasi inay ka qaxaan bartamaha Mareykanka Gaza oo ay aadaan xeryaha ee ku yaala Al-Mawasi goobta la yiraahdo waxaana hay'aduhu ay sheegeen inaysan muuqan
dadku inay ka heli karaan adeegyadii aasaasiga ahaa ee nolosha goobtaasi hay-aduhu waxay fariin u direen qoysaska ku nool marinka Gaza iyagoo carabka ku adkeeyey in bulshada iyo shaqaalaha caafimaadku ay sii joogi doonaan magaalada Gaza intii suurtagal ayna wadi doonaan inay ka shaqeeyaan danta guud waxay ku baaqeen iyagoo beesha caalamka la hadlaya in arrintan wax laga qabto oo degdeg lagu hirgeliyo xabad joojin iyadoo la ixtiraamayo qawaaniinta caalamiga ah ee bani'aadamnimada oo ay ku jirto sii deynta la haystayaasha iyo maxaabiista si markaasi arrinkaasi wax looga qabto wahagaag waxaan u gudbaynaa markan warar ku soo kordhay weerarkii Israa'iil ay ku qaaday magaalada Doha ee dalkaasi Qatar intaan u gudbin Netanyahu oo caawa Qatar oo ayada dacwo qabtay u dhaaranaya haatan waxaan eegaynaa caawa waxa lagu waday inuu dhaco kulanka golaha amniga qaramada midoobay ee degdega ah oo ay dalbatay dowladda waddanka Algeria ayna taageereen dowladaha Soomaaliya iyo Pakistan laakiin waxa la sheegayaa kulankaasi inuu caawa baaqday aynu eegno war amurtan la xiriira oo wakaaladda wararka ee UN News ay soo tuurtay madaxweynaha bishan ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ah wakiilka koonfurta Korea ayaa shaaciyay in kulankii degdega ah ee lagu waday caawa in uu dhaco dib u dhac uu ku yimid isla markaasna khamiista habeen dambe kulankaasi uu dhici doono golaha ammaanka ayaa waxa dib u dhigay kulankan wada tashiga ahaa ee looga hadlayay weerarkii Israa'iil ay ku qaaday waddanka Qatar waxaana la sheegayaa sababta dib u dhiga inay tahay codsi ka yimid ra'iisul wasaaraha Qatar sida lagu sheegay warkan ka soo baxay golaha ammaanka lama cadeyn haddii ra'iisul wasaare Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani uu si shakhsi u imaan doono laakiin wuxuu dalbaday in kulanka dib loogu dhigo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa shalay si adag u cambaareeyay ku xadgudubka cad ee Israa'iil ay ku samaysay madax banaanida waddanka Qatar kadib markii ay beegsatay xarumo ku yaal magaalada Doha gaar ahaan goobo ay ku sugnaayeen hogaamiyaasha Xamaas waxaana la sheegay in markaa loo baahan yahay ixtiraamida qawaaniinta caalamiga ah waaye dhinaca kale waxaa caawasana bayaan soo saaray golaha loo dhan yahay qaramada midoobay golaha loo dhan yahay waxa ku jira 193 wadan ee xubnaha ka qaramada midoobay waa la siman yahay golahaas laakiin go'aan fulin mara sida golaha amniga oo kale marka golahaas ayaa caawasana war soo saaray arrintan ayuu ka hadlayaa Qatar iyo weerarka ay ku qaaday lagu soo qaaday waddanka Qatar ee Israa'iil ay ku qaaday haddaba waxaa la sheegayaa in mas'uuliyiinta golaha guud ee qaramada midoobay ay sheegeen in weerarka Israa'iil ay ku qaaday Qatar uu yahay mid xadgudub ah isla markaasna faragelin ku noqonaya arrimaha gudaha ee dalkaasi bayaankan ayaa waxaa lagu sheegay in howlgallada Israa'iil ee Qatar ay yihiin ku xadgudub qawaaniinta caalamiga ah iyo ahdiga qaramada midoobay isla markaasna sharci darro ay yihiin golaha ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga walaacsan yahay si socoshada dhaqamada caynkana iyo weerarada Israa'iil ay ku qaaday madax banaanida waddanka Qatar golahu waxa uu ku sheegay bayaankiisa in howlgallada Israa'iil ee Qatar ay weeqayaan dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro nabad iyo xasilooni waxaana golahu uu cambaareeyay beegsiga shakhsiyaadka siyaasadeed ee Qatar xilli wada hadalla ay socdaan qaramada midoobay waxa la yiraahdaa waxay si adag u cambaareynaysaa ku xadgudubka Israa'iil ee madax banaanida iyo qaranimada dawlad ee waddanka Qatar waxaana loogu baaqay Israa'iil inay si degdeg u joojiso weeraradaas isla markaasna lala xisaabtamo haddii ay keento kordhin colaadda ah arrinta xiisaha waxa weeyaan golahan ayaa dhaweyta waxa loo doortay gabar ahaan jirtay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Jarmalka oo lagu magacaabo Annalena Baerbock weliba markii loo doortay inay qabato madaxweynaha golaha loo dhan yahay aad baa arrintaasi loo cambaaray inkastoo cod loo qaaday oo cod ay ku guuleystay sababta gabadhan waxay aad hadda ka hor qeyl ugu samaysay weerarada Israa'iil ee ka wada marayka Gaza arrimaha la yaab kale waxa weeye siyaasad isku bedeshay sanadkii hore waxay difaacisay Israa'iil laakiin caaw Israa'iil bay ku qaadaysaa inkastoo kaligeed uusan ahayn golaha maamulka sare oo warkan ay soo wada saareen dhammaan golaha oo idil inta maamulka haysa ama hogaaminta golaha laakiin haddana waxa leeyahay isbedel la yaab leh ayaa ku yimid waxay aaminsaneyd in marayka Gaza Israa'iil waxa ay ka sameynaysaa ay yihiin kuwa qiil loo sameyn karo sababtuna ay tahay waxay ku tilmaamtay isdifaac
Israa'iil isdifaacayso waliba xilligaas waa lagu qabsaday waxa la yiri ma in iskuul la weeraro iyo goob caafimaad iyo saxafiyiin iyo dad rayid ah ayaad ku tilmaami kartaa inaad tiraahdid Israa'iil xaq bay u leedahay inay isdifaacdo marka xilligaasi waa laga soo gudbay iminka arrintu dhinac kale ayay joogtaa way waxaan u gudbaynaa goordhow Netanyahu iyo digniintan uu qadar u jeediyay caaw laakiin warba wuxuu ka soo kordhay arrin mucjiso lagu tilmaamay oo ahayd qaabka ay ku badbaadeen hogaamiyaasha ururka Xamaas markii weerarku dhacayay warkan dhowr meelood oo kala duwan buu ka yimid telefishinka kana 12 Israa'iil laga leeyahay waa ka yimid dhanka Iiraan iyo macluumaadyo dhanka sirdoon kale oo ka yimid haddaba maxaa dhacay marka waxa la sheegayaa in mas'uuliyiinta Xamaas guriga qaybta la duqeeyay oo aan ka sheekeynayna ilaa iyo saaki wararka iyagii inay fadhiyeen markii hore laakiin salaadii casar baa soo gashay salaadii markay soo gashay casar guriga qaybta kale oo saaki aan aad u faahfaahinaynay oo markaas loo qaatay inay ku shirayeen ayay ku tukanayeen ilaahay amarkiis yani salaadaas ay u kaceen ayaa badbaadisay hogaamiyaashaas qaybta ay joogeen oo ay dhici karto telefoonada in looga tagana waa meesha la duqeeyay marka waxa warkan uu karo muujinaya sida qobrada militariga ay sheegayso in 100% weerarkan lagu hagayay ama la adeegsanayay mobilada ama telefoonada maxaa yeelay meesha ay joogeen ayay ka tageen salaada casar baa soo gashay salaada casar bay wada tukanayeen dabcan telefoonada meesha looga tagay telefoon la qaadan ma hadii la tukanaya marka laakiin meeshaasay fadhiyeen waa sababta Netanyahu 5 saacadood ugu adkaysanayay hogaamiyaasha Xamaas waa dilnay maxaa yeelay asaga hagay weerarka dabcan sawiradaas waana tusnay isagoo jooga xarunta sirdoonka oo toos ula socda weerarka oo hagaya waa sawirkan wasiirka gaashaandhigga iyo asaga iyo madaxda kale Israa'iil waa meesha weerarka laga hagayay marka wuu la socday inay meesha joogeen qaarid mishcaal iyo qaliil al-hayy kulli way joogan meesha laakiin awood ilaahay meesha ka muuqata iyo salaadaas marka waxa lagu tilmaamay arrinta inay tahay arrin mucjiso haddaba aynu eegno sheekada ku saabsan Netanyahu iyo hanjabaadda uu jeedinayo ee la xiriirta qadar waa u iman doonaa war waxa kaloo jira isaguna Israa'iil wadan kamida wadamada reer galbeedka oo xiriirka Israa'iil uu leeyahay gabi ahaan ka fiirsanaya laakiin aynu eegno war intaynu barnaamijkan soo gelin daqiiqada ka hor soo dhacay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa hadal adag caawi jeediyay isagoo ay ku socoto cambaarin caalami ah oo ka dhalatay weerarkii uu amray ee lagu qaaday dalka Qatar wuxuu yiri Qatar waxa laga rabaa laba arrin waa inay kala doorataa waa inaad cayrisaan hogaamiyaasha Xamaas ama maxkamad asaartaan haddii sidaas aasmayn weydaan annaga samayn doona sidaas arrinta marka la yaab kale waxay noqotay ma hadda ayuu rabaa Qatar inuu weeraro markii ay badbaadeen hogaamiyaasha Xamaas su'aalaha la isweydiinayo dabcan warkan waa laga hadli doonaa waa war cusub intaas baan ka soo qaadanay laakiin labadaas far buu u taagay Qatar hogaamiyaasha Xamaas cayriya ama maxkamad saara haddii kale annaga sidaas samaynayna وهجاج دولة ودك كندا أي واحد كل واقعي إنه كفير سنة يسوع حرير كأيلا هاي إسرائيل صوتنا أي تهاي وهركن إسرائيل كوق عادي ودك قدر أردنا أي واحد لجوسا ورمياه إنه يتهاي عرين عصب إنك استوى جوان كأيس كل واقع لكن كندا وركن كسو يري وحليه وور أدر علس حيلي وودن كمدا G7 وودن كمدا ودمدا يعني وجا أود بدن ناتو يسمى كأسن هرمود wadamada reer galbeedka marka iyadoo markii hore ay socotay aqoonsiga Falastiin ayaa hadana Canada imika waxay leedahay waxaan ka fiirsanaynaa xiriirka aynu leelanahay Israa'iil sababtuna ay tahay weerarka ay ku qaaday wadanka Qatar oo xadgudub cad lagu tilmaamay isla markaasna Qatar ay ku sifaysayba ficil argagixiso dabcan barnaamijka wararka caawana waa nagdi kugu sheegnay dawladda wadanka Qatar inay diyaarinayso inay maxkamad la tiigsato Netanyahu طبعا وانت كليه ay sameyn karta ayaa la leeyahay maxaa yeelay sida Iiraan oo kale hadii gantaal ay haysan lahayd way ku liglig lahayd laakiin dadku waxay leeyihiin arimahan ka faalooda lacagta kaliya waxa ma tarto hadii aadan awood lahayn waa hagaag markan aynu eegno sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aan idin kugu soo gudbinay
waa sheekadii ugu dambeysay barnaamijka aynu kusoo gabagabayn jirnay waxaan idin haynaa sheeko la yaab leh oo ka dhacday waddankaasi Shiinaha sheekadan baraha bulshada iyo warbaahinta waddanka Shiinaha ayay qabsatay waxaana ay ku aadan tahay maxkamadda gobolka Bandung ee Shanghai ayaa waxaa la sheegayaa inay dhawaan qaaday dacwad la xiriirta lamaane isguursida 2023 laakiin imika furiin dalbanaya maxay tahay sababtu waxay leeyahay sanadka aynu ka soo gudubnay ayaa waxa u dhashay wiil caafimaad qaba laakiin waxay ku heshiin waayeen magaca loo bixinayo wiilka mid kasta wuxuu ku adkaystay magac isagoo wato in loo bixiyo waxa la isku qabsaday dokumentiga ee isbitaalka uu ku qori lahaa magaca wiilkaas aabihii hooyadii ayagoo kala socday waxay tageen isbitaalkii isagoo mid walba gooni u wato magacii laakiin bacdama qaanuun uu ka jiro waddanka Shiinaha oo ah in labada waalid markay isbitaalka ilmaha ugu dhasho magaca loo bixinayo ay warqad wada saxiixaan waa laga diiday laakiin arrintii maxay gaartay dacwadii maxkamad garsoorihii dacwadda ayaa sheekadaasi maqlay markaas waxa la sheegay in uu sheegay in ilmahani hal sano uu dhaafay da'diisa ilaa intaasna la isku haystay dhalashadiisa magaci loo bixin lahaa waxaana markaas uu sheegay inuusan haynba diiwaan rasmi ah oo ilmahaasi ku aadan maxkamaddu waxay carabka ku adkaysay in shahaadada dhalashada ilmahaasi ay muhiim u tahay aqoonsiga sharciga ee ilmaha khilaafka waalidka uu dhaawacayo xuquuqda ilmaha yar uu leeyahay ugu dambeyntii maxkamaddu waxay soo saartay go'aan loo diray ogeysiiska waaxda daryeelka carruurta yaryar iyadoo lagu amray waalidiintu inay iska kaashadaan helitaanka shahaadada dhalashada iyo magaca loo bixin lahaa ilmahaasi waxaana dokumentiyada asalka si ku meel gaar ah loo sii geliyay maxkamadda iyadoo loo wareejiyay hooyada si ay u dhamaystirto diiwaangelinta qoyska arrintan ayaa markaa waxaa la sheegayaa in ugu dambeynta ay kusoo idlaatay lamaanihii iraado waaba isfuraynaaba sababtuna ay tahay magaca la isku khilaafsan yahay ee loo bixin lahaa ilmahaas u dhashay adduunka waxbaad ku arkaysaa waa hagaag inta ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka